iyadoo magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug uu ku sugan yahay wafdu uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wufuud kale oo ka kala socota maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa maanta waxa magaalada Dhuusamareeb soo gaaray madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ujeedka safarkoodu waa inay ka qayb qaataan dhamaystirka heshiiskii ahlu sunna iyo sidoo kale Galmudug oo la filayo in maalinimada bari madaxweynaha jamhuuriyadda uu daafuro garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb waxa ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Puntland madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Dhuusamareeb soo degista kadib wafdiga oo gudaha magaalada kula hadlay saxaafadda ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxay Dhuusamareeb ku soo dhaweeyeen Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wufuudda heer caalami iyo heer dawladda Soomaaliya caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxa hadda nala soo istaagay madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan si uu ugu soo dhaweeyo kalimaadkiisa wanaagsan uu yiraahdo maadaama loo marti yahay Galmudug madaxweynaha Galmudug oo ku soo dhaweynayaa ku soo dhawaaw reer ahlu sunno dhan dhamaantood magaaladan Dhuusamareeb ama gobolladii dhaxo hore ahaato ama ahlu sunna ha ahaadeen iyo in allaaleeyo intii joogtay oo sii joogtay magaaladan saan noogu soo dhaweysay dhamaantayo anoo kamida dadka xataa la soo dhaweeyay anoo madaxweynaha Galmudug haddana inta la soo dhaweeyaan kamid ah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shacabka iyo ciidamada iyo dhammaan reer ahlu sunno dhan madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isagana dhankiisa hadlay ayaa wuxuu ka mahad celiyay soo dhaweynta waxa uu farxad ku tilmaamay in magaalada Dhuusamareeb uu maanta ku sugan yahay isla markaana uu ka qayb galayo dhamaystirka heshiiska ahlu sunna iyo Galmudug dadkan iyo runtii dawladnimada aadan ugu mahad celinaynaa soo dhaweynteena soo dhaweeyeen gaar ahaan maamulka Galmudug iyo ahlu sunna heshiiskoodina aad iyo aad soo dhaweynaynaa waa heshiis taariikhi ah caasimada oo maanta loo soo guuray dawladdu waxay u tahay horumar ay u tahay Soomaaliya dhan ay horumar u tahay Axmed Cumar Cable TV